Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khayrtan ugu xiran meel walba dunida tacalada ka joogtaan waxaad ilaalina waqti idin wacnaada jimco wanaagsan guys maanta waxaan doonayaa inaan ka hadla filimka la yiraahdo Ria ee dhawaan soo baxay iyo maxaa ka jira hadalheynta sheegaya in filim wiilka la yiraahdo Tiger Shroff lagu soo daray filimka Singam 3 oo ajay goomiyaha ka yahay haddaba guys intaan barnaamijkeena ugu gudagalin waxaan idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan oo like gareysaan oo share gareysaan viewskana korna u qaataan guys soo dhawaada mar kale waxaa maalimadii shalay ahayd tusaale 10 Oktoobar ahayd tiyaatarada caalamka la saaray filimka weynaa ee la yiraahdo Leo kaasoo hogaamiye FJ iyo directorka la yiraahdo Lokesh Kanaraj. Filimkan ayaa ah filimka rajo weyn laga qabo inuu filimkan noqon doono filim si buuxda taageerayaasha ugu falceli doonaan. Haddaba filimkan ayaa waxaa laga soo bixiyay faallooyin wanaagsan inta daawatay ayadoo qaar ka mid dadka ay dhaleeceynayeen qaybtii labaad. Filimkan horta marka hore waxaa loo qaybay laba qaybood sheeko ahaantiisii xoogoo video waa la iska diidayaa laakiin filimka waxaa loo daawanaa waxay tahay actionada iyo qaabka FJ asaga filimka uu duubay waa bela laakiin sheekada xoogoo aan wanaagsaneyn la leeyahay feedback soo laabanayo. Si kastaba ha ahaatee filimkan ayaa maalintiisa ugu horeysay lama filaan ugu furmay box office-ka kaasoo laga soo xiganayo warbixinta dhanka ganacsiga uu ka sameeyay. Filimkan ayaa maalintiisa koowaad soo xareeyay lacag gaaraysa 100 karoor adduunka oo dhan markii la isku dardaro. Haddaba filimka Leo waxaa tiyaatarka la saaray 19 Oktoobar. Xamaasadda filimka Celebrity FJ ayaa heerkiisa ugu sarreeyay maraya ka hor intaan la sii deynin muuqaalkiisa furitaanka ee filimkan ayaa la faafiyay qaybta internetka xayeysiimaha loo sameeyay ayagoo qaar ka mid ah taageerayaasha si weyn ay ugu heelanayeen ee daawadaha filimkan ayaa shalay wuxuu sameeyay taariikh aan marnaba dhicin oo ah in hal maalin gudaheeda filimkan uu ku soo xareeyay 100 ilaa 140 karoor. Haddaba waxaa jira filimkan sheeko ahaantiisa in la dhaleeceeyay balse qaar ka mid ah taageerayaasha filimka waxay leeyihiin filimkan sheekadiisa waa iska xuntaa laakiin muuqaal ahaanta actionada iyo qaabka reactionada oo qaabka loo duubay filimka Celebrity FJ wuu ka baxsaday filimkana waxaa ku jira director actorka weyn ee la yiraahdo Sanjay Dutt ayaa waayadan film wuxuu keenayaa asagana qaab laadarnimo asagana laakiin wuu ka baxsaday filimkan laakiin waxa waaye insha Allah anagana waxaan rajeynaynaa markaan daawan doono inaan falcelin fiican ka bixino filimkan. Maalintiisa koowaad wuxuu soo xareeyay shalay la saaray ilaa maanta waxaa la sheegaa box office sida aan ka soo xiganayno inuu soo xareeyay lacag gaaraysa 140 karoor. Haddaan u gudubno filimkan waxaa director ka ah Lokesh Kanaraj waxaa hogaamiye ka ah Celebrity FJ waxaa Trisha ka ah Trisha Krishnan Surya ku jira Sanjay Dutt ku jira Arjun Saraj ku jira asigana sidoo kale Naveen Powley ku jira Arjun Das ku jira. Filimkan waxaa la leeyahay qaabka loo duubay inaba caadi maahan iyo qaabka loo dhigay filimkan laakiin balaayo waxay ka jirtaa qaybta sheekada filimka loo daawanayo. Haddaba filimkan intaas ugu gudubno haddaba waxaa jira hadalheyn asigana dhalisay baraha bulshada ka dhalatay filimka la yiraahdo Singam 3 oo dhawaan soo bixi doona kaasoo lagu soo daray la leeyahay Tiger Shroff. Haddaba Tiger Shroff ayaa bartiisa Instagram ku soo dhigay muuqaal uu ku muujinayo sida uu ugu faraxsan yahay ugu qanacsan yahay doorkii la siiyay askarnimada sida uu ugu baxsaday. Directorka Roy Shetty ayaa ku amaanay actorkan in uu si aad u soo jiitay qaabka jilinkiisa iyo qaabka uu isku soo dhisay jir ahaantiisaba. Ninka la yiraahdo Tiger Shroff wuxuu taageero badan ku leeyahay dhanka baraha bulshada iyo dhanka caalamkaba. Haddaba muuqaalka Tiger Shroff ee filimka ayaa lagu maadeystay baraha bulshada wuxuuna soo dhaweyn diiran ka helay aktarada ay ka mid yihiin Akshay Kumar, Ranveer Singh iyo Ajay Devgan. Haddaba Tiger Shroff laftiisa ayaa baraha bulshada la wadaaga sawirro badan si uu isagoo leeyahay isagoona xidhan dhar dareys ciidanka ah qaybta booliska la siiyay filimkan doorkiisa. Tiger Shroff oo jir ahaantiisa Zaid isku soo dhisay ayaa isaga oo qori wata hal sawir soo dhigay halka sawirada kalena marna shaar la'aan yahay marna dharka ciidanka booliska wata. Haddaba filimkan ayaa soo bixi doona dabayaaqada sanadka 2024.
Singham 3 waxaa ku jira Ranveer Sai, waxaa ku jira Akshay Kumar iyo Ajay hogaamiye ka director waxaa ka ah Rohit Shetty. haddaba filimkan ayaa iskale shirkadda la yiraahdo Ashraat Films. Guys, sidaad u aragtaan ninkan lagu soo diray filimkan muxuu ka bedeli doonaa xamaasadda filimkan uu lahaan jiray? Wuxuu kusoo kordhi doonaa mise qaybta hoose comment-iga noola wadaaga. Midda kale guys, waxaan idinka codsanaynaa inkastoo maanta Jimco ay tahay, waxaan u duceynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo walaalahayna reer Falastiin culays ka haysto Yuhuudda sida waxa suuqaysa inta ku shahiita Allah u raxmado, inta dhaawacantana inuu Ilaahay bogsiyo. maanta waxaa jira magaalada Muqdisho bannaanbax la qorsheynayo inuu wax saacado kadib uu dhici doono hadduu Ilaahay yiraahdo, iyo kulan duca akhris ah, quraan akhris aan dhehe oo lagu quraan akhrinayo walaalahayna reer Falastiin inuu culays ka qaado. Ciddii ka qayb galaysa way ka qayb gali kartaa, ciddii usoo niyeysanaysa inay Ilaahay dhibka ka qaadana ha usoo duceyso insha Allah. adduunka oo dhan laga banaanbaxoyaa gaalada naftirkooda qaarkooda baa hada shalay waxaan arkayay muuqaal ay soo duubeen Yuhuud qaar dad reer Yuhuud oo Israa'iil oo ka dhiidhinaya arrintii oo ay kula dhaqmeen ciidamada dadka shacabka reer Falastiin. marka wadamada islaamka oo dhan way wada kaceen, ciyaartooyda islaamka xataa qaar way ka hadleen, qaar yacni waa la ciqaabay oo maxaa uga hadashay camal loo qabsaday. waxaa kamid ah Karim Benzema oo kale hadda lagu dhagay la leeyahay xataa Ballon d'Or laga qaaday dhalashada Faransiiskana halagala noqdo sababtoo ninkan urur oo gacan saar la leeyahay. xitaa kale asigana waxaa jira Muslim asigana Bayern Munich ku ciyaaro asigana sidoo kale la ganaaxay sababtoo uga hadashay camal ah. marka hadda horyaalka Premier League asigana sida la sheegayay warbixinada qaar aan ku arkay website-yada qaar asigana maalinta berito waxaa laga ilaalin doonaa labada calan in taageerayaasha garoonka ay ku soo galaan ciyaaraha, calanka Falastiin iyo calanka Yuhuud inay soo qaataan sababtoo waxay leeyihiin waxay uga andacoonayaan siyaasadda iyo kubadda cagta meel islama wada galaan camal. marka asxaabteeda ku xiran janaalkeen waxaan idinka codsanaynaa inaad idinkana aad ka qayb noqota, anagana aad ka qayb noqono dadka walaalaha u duceynayo meel walba joogaan reer Falastiin inuu Ilaahay culays ka qaado, inuu Ilaahay dadkan gaalada ka qabto. gaalo waa u midooday waad u jeedaan, marka loo duceeyo walaalina reer Falastiin. gaas waxaan intaa kusoo goobeynaa barnaamijkeeni markale waxaan idinka codsanaynaa noo subscribe gareysaan oo like gareysaan oo share gareysaan. waana mahadsantihiin guys.